xukuumadda federaalk Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho ka daahfuray madasha siyaasadda dhaqaalaha qaranka oo socon doonta muddo 2 cisho ah iyadoona diiradda lagu saarayo horumarinta dhaqaalaha iyo siyaasadaha lagu taageerayo kobaca dhaqaalaha ee dalka. Shirkan ayaa waxaa ka soo qayb galay khubaro dhinaca dhaqaalaha ah, rugta ganacsiga, madax ka socotay bangiyada, xubno ka socday beesha caalamka, xildhibaano, wasiiro iyo marti sharaf kale. La taliyaha dhaqaalaha madaxweynaha ahna agaasimaha golaha dhaqaalaha qaranka Xasan Aadan Hoosow ayaa ugu horeyn ka warbixiyay daraasadaha madashan lagu soo bandhigay iyo waxyaabaha 2 sano ee la soo dhaafay u qabsoomay madashan. sanad walba waxaan qabanaa madashan waxaan ku soo bandhignaa daraasado kala duwan. daraasadahaas aan soo bandhigno waxaan u soo bandhignaa khubarada kala duwan ee dhaqaalaha waxaana dhageysanaa ra'yigooda. ra'yiga ka soo baxa doodahan waxaan u bandhignaa shacabka waana baahinaa. sanadihii la soo dhaafay mudane ra'iisul wasaare xukuumadda dan qaran waxay gaartay guulo la taaban karo arrimaha dhaqaalaha ah. markii talada dalkan ay xukuumadda la wareegtay kororka GDP-ga intaan aad ugu hooseeyay intay xukuumadda jirtay dhinacsin baa la gaaray. dhaqaalihii wuu ziyaaday, dakhligiiba aad u kordhay. Gudoomiyaasha rugta ganacsiga, bangiga dhexe iyo xildhibaan Cabdiraxmaan Odowa ayaa si wadajir ah uga hadlay caqabadaha iyo daraasadaha laga sameeyay kobaca dhaqaalaha dalka. mudane ra'iisul wasaare farxad noo tahay in barnaamijka dalkeena oo habkan isu bedelo oo aan hadda aan marayno in guddiga dhaqaalaha oo mar walba daraasad sameynaya oo soo bandhigayo iyo waliba dadka ay u bateen ganacsatada iyo dadka kale inaa wadanka dhanba jaamacadaha iyo research inay isu bedeleen oo mar walba daraasadana loo soo bandhiga. anaga ganacsigan awal wuxuu ahaan jiray waa tashan jirnay waan dhaqaaqi jirnay, laakiin markaa waxay noqotay ganacsi daraasad ay ka horeyso oo maxaana anfaca iyo maxaan galnaa iyo maxaa noo noqon doontaa aan isla aadnay. saa ogtihiin wadankeenu wuxuu leeyahay ilaahay ku manaystay kheyraad badan oo aynu had iyo goor ka hadalno, hadday tahay waxa dhulka dushiisa saaran ama dhulbeereedka ama badda weyn ee dhererka badan ama waxa dhulka hoosta ku jira ama dadka da-da yar oo ah resourceka ugu qaalisan aan haysano oo tirada badan. waxa aynu mar walba soo hadal qaadno adduunkuna inagu majeerto waxaan u baahnay inaan ka faa'iidaysano. kaloo aan ku jihayn lahay private sectorka iyo dowladdaba in la helo warshado iyo shaqooyin waaweyn oo shaqooyin aad u badan looga shaqeeyo, dad badan oo ka shaqeeyaan macnaheedu haddii ay yimaadaan in ay shaqo tagaan dad aad u badan dhaqaaluhu markaas waxbaa ka qabsoomaya. Wasiirka Batroolka Xukuumadda Federaalk Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed ayaa tilmaamay in mar walba uu amniga soo hagaago uu dhaqaalaha dalka kor u kacayo, sidaa daraadeedna ka wasaarad ahaan ay xoogga saarayaan xoojinta amniga. 2012 wadanka amnigiisa sidoo ahaa iyo maanta sidoo ahaa waa kala labo. dhaqaalaha wadanka waagaas sidoo ahaa iyo hadda sida uu yahayna waa kala labo. waxaa keenay mar walba uu amniga kor u kacabo waxaa kor u kacayo dhaqaalihii wadanka, waxaa kor u kacayo maalgashigii. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalk Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre oo shirka furay ayaa ku booriyay in la xoojiyo iskaashiga dowladda iyo ganacsiga gaarka loo leeyahay si loo abuuro shaqo iyo maalgashi waara. waa madashii ama shirkii 7aad sida ay meeshaba ku qoran ee madasha siyaasadda dhaqaalaha qaranka. waxaan soo dhaweynayaa aniguna sidoo kale in aad soo dhigtaan halkan fursadaha aan haysano dhaqaale ahaan, sidoo kale caqabadaha ina hortaagan ama ina horyaalla, in aad ka baaraan degtaan idinka oo ah culimadii dhaqaalaha habkii lagu abuuri lahaa ama hanaankii lagu midayn lahaa dadaalada horumarineed ee dalka ka socda, hadday noqoto dhinaca dowladda iyo dhinaca private sectorka iyo dhinaca partnerska nala shaqeeya intaba. wixii dadaalaya socdaa sidii lagu midayn lahaa oo strategy mid ah lagu samayn lahaa inaad baadi goobtaan.